munaasabada maalinta Ciidul Fidriga ayaa si weyn looga oogay magaalada Tani Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona kumanaan dadweyne ah ay salaada Ciidul Fidriga ku oogeen dhowr goobood oo loo asteeyay in lagu tukado salaada Ciidul Fidriga dhowrka goobood ee lagu oogayay salaada Ciidul Fidriga ayaa waxa kamid ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo masaajidka weyn ee Mawlaca waxaana goobaha lagu oogayay salaada ciida ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawlad goboleedka Jubbaland salaada ciida kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere waxaana uu ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta qiimaha weyn ee Ciidul Fidriga ilaahay waxaan ka baryayaa in ciidan ciideedii kale caafimaad iyo cimrisan cibaadasan mansab khayr qaba adduunya aakhiraba in ilaahay noo gaarsiiyo marka ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Jubbaland ciid wanaagsan iyo iscafin iyo midnimo iyo amniga laga shaqeeyo dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo kumanaan dadweyne ah kula tukaday goobaha lagu oogayay salaada Ciidul Fidriga ayaa hambalyo ku aadan maalinta Ciidul Fidriga u diray shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan adduunka aadan maanta ciida ugu faraxsanahay hal iscaafiyo saamaha Allah kulli hada laga qofka uu leeyahay kaasina kulli kana muday wadaana la yaafi وإنه أنا أتى واحد من الكتاب من عفيف أنا سعفيه هذا سعفيه إذا على يسوع بعكوا أنا هذا غير مغلو تفقه السلام كانت الأحمر عفيسكو وشيء أنا أتذكر اليد ولا إنه خسر قاصد ولا مغلو بعين dhanka kale madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday siyaasadda dalka isagoona baaq u diray ururka al-shabaab in ay wada hadal la furaan haddii ay diidaannaha ay dagaalka foolka la geli doonaan isla markaasina ay ka suulin doonaan gobolada dalka Soomaaliya duwaynaadka faraha badan ee Soomaalida ee magacada sheeganaya ha xambaareen mas'uuliyadda wadankooda iyo ciidankooda ha isku dayeen inay ka kaaftoomaan ciidamada shisheeye ee banaanka ka yimid ha isku dayeen ciidan ay leeyihiin inay intay samaystaan meeshii lala qabtaba iyagu intay la wareegaan inay systemkii iyo ku soo celiyaan maamulkii iyo nidaamka laakiin hadday sugaan intii loo qabto in loo hayo kalla maalin walba waa laga bixi dhibaato hornaana soo gaaraysa ciidanna laguma samayn karayo qola waliba intay ciidan gooni oo abuurto reebel ku abuurto magac dawladeed sheegato inay kuwa kale ka sii cararaan la suurtagal ma noqonayso ciidannimaduna ma aha magaalooyinka iyo in la dhex warwareeyo waa in wixii shaqee u taallay iyo dhulka sidii loo qaban lahaa amnigiisa laga shaqeeyo waxaan odhan lahaa hogaamiyeyaasha Soomaalida inta lagu mashquulayo doorasho 2016 yaa soo baxaya xageen maraa هي يا راشد الحق هي الحقيقة سو جليا قرناء إلى غربة العقل تيلك بروح يسمع كان يجينا على جنب ورقم كان حلوة وما دانسين بالداري عروض الله يلي رقم باباي بركة عداي يعني حتى الراشد غاثة لجالسين كان يسين بالداري مدة على جنب ورقم كان ضبكي لها مباهي ده كان حشران مباهي dalkan nimankan maalin walba qaraxa iyo dhibaatada iyo shidada geysanaya inta loogu waxaysan kuwa nala joogi mahaya inana sidoo kuma sii jiri karayna tala kale aan qaadan aan soconno dhulkeena xoraysan kuwa shabaabka aan u yeerno dacwo ugu yeerno hadday diidaan waan la dagaalamay baday baa laga hayaa waxaa la sarayo qoriga maxaa u qaatay wiilkeeda oo soo wiilkaagii ma wuxuu saraya nin dilaya ma xilli saraya nin dilaya wiilkeeda hadduu dilaya nin xiga saraya nin dilaya ma xiga Saabir Cabdulqaadir Rusame Saabir Honesty telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo